baa ku dul fadhiya aniguna in halkan idinla joogo aad baan ugu faraxsanahay xilliyada marmarka qaarkood aad yara dareemaysid in xaajigu maqan yahay isku madaalisa balse aad u xasuusatid inaad codkiisii iyo dhageysatid oo bal xasuus gaar ay ku samaysan waa dhageystaaysiisay heeso hadda kor ii qaad inta xiriirka lahayn dhageystaa inta badan taas ugu jeclahay haddana waxa ka sii jeclaan doonaa mid hadda isoo wada aniga gabadheed hodan waan ugu mahadcelinayna aad baan ugu faraxsanahay waa suganaa marmarka qaarkood farxiyo dabcan waan dareemi karaa oo bulshada ila dareemi kartaa dabcan lamaane wanaagsan oo dhanka qoyska laftigiisa dhanka xiriirka jacaylka iyo bara bulshada xamna cid inaysan ka taasoonayn marmarka qaarkood waxyaabo kadis ma jiraan oo aad odagaaga ugu talagashay baan kadis uga dhigtid way jiraan isagaan og public ma laga dhigi karo aad iyo aad waxaan soo laabanay marka dayax waan soo laabanay dabcan su'aalaha ugu badan labadeena un baa bana dhex mara doonaan warowduna gobjoog bay ka tahay ana bood amal baa isku dul wareegi doonaa dayaxow dabcan dad qof markuu fanka ku soo biiraya ama wax ku abuuran oo markiis ugu horeyso dhalinyarada ahaa buu iska jecel yahay si fiican ama qoys wuxuu ka soo jeedaa inta faneedoo qoyska ah marka qaabka fanka haddaad dib ugu laabatid siyaabaha u adeeg ku soo gaadhay wallaahi way jiraan dad fanaaniin fanka dhaxla awoogood ama aabbahood ama hooyadood ama ayadood fanaan ahaan jirta markoodii hore laakiin aniga fir iyo faracba fan iima gelin faamilkaygana markaa fanka soo gala dagaalka ila galeen ilaa hadda looma kala harin baa la taagan yahay dabcan qofku markuu dhalinyar yahay dayxow way iska badanta caqabadaha iyo ka soo wajaho taas waa wada ognahay si fiican waxaan ku weydiinayaa su'aashii aan weydiiyey farxiyo aan weydiiyey marmarka qaarkood ma jiraan waxyaabo farxadda oo inta aad adigu jaaniska aad haysid waxyaabo aad ku madadaalatid oo aad haddaad doonto ku soo xasuusato farxiyo ma jira soo maaha wallaahi ayadu xitaa ana haddaan sheegi lahaa teedaa ka daranba waa secret waa kaasa soo bandhigi kara hadhow khaas baa kugu sheegi doonaa dadkoo dhan baa naga baran doonaa way haday dabcan dadweynuhu hadal badan uma baahnee aan bal jag ka siino hurdada ka tuurnay mid ka mid ah heesahaaga dabcan waxaan soo qaban lahaa heestii kuugu horeysay oo dabcan saamaynta badan kugu yeelatay teeba ahayd heestaas waxaa waaye magan waa heestii ugu horeysay ereydii laxanka waxaa iska leh nin aan abwaankayga aad saaxiib u nahay baashi maxamuud macalin muusiga waxaa tumay maxaa la ii sheeg muusigistii ugu horeeyay muusiga ii tumo macalin bukur waan uga mahadcelinayaa codka iyo farsamada iyo waxa dhan waxaa isku dabariday cumar mooye abuukarna leeyahay adiguna codkaagii halaasiga ahaa intaad ula tagtay meel uga soo hadhay waxaan soo qaban doonaa heesta magan iyo weliba codkii halaasiga lahaa ee dayaxa dal nuurshe ee gabogasho wanaagsan نسألوا يا أبليو ومشاكل قوليا وحمان طيبو دعي ورقدني فضي نسألوا يا أبليو ومشاكل قوليا وحمان طيبو دعي ورقدني فضي حيلت مغطو ودو أنسوغايا ميتكال انتراغو مهرو كدعي حيلت مغطو ودو أنسوغايا ميتكال انتراغو مهرو كدعي مولو والله يوم سنكاغو إذل
adigoo maciine intaadibaan